diyaaradaha miyaanu ka bixin waxba kama jiraan muddo toddobaad ayaa dhacdadan ay taagan tahay soo ma dhihi karno waxaa muuqata in ay ka gaabiyeen hay'adaha amniga inay gacanta ku soo dhigaan eedaysanihii falkan geystay lama dhihi karo sababta loo dhihi karina waa aniga kuu sheego waxaan ku idhi dhacdadu markay dhacdo hadba intay la eg tahay oo baaxadeedu la eg tahay iyo sida ay u soo gaarto meelaha qaarkood ayaa wax looga qaban karaa waxa laga yaabaa aan ku idhi dhacdadaanu markii ay dhacday gabadhu dee markii hore dhaawaca gaaray oo horey kama aysa dhiman annagoo dhan maca adinkana waa ogtihiin oo social media iyo 24 saac war waxa ahayn kama shaqeydin marka xilliga arintaas ay kor u soo kacdana waa dareemi karteen xilliga ay tahay masaafada sadda aan sheegay ilaa waqtigaana waqtiga u dhaxeeyay marka waa aniga kule dambiyadu markay dhacaan kama soo meelaha qaarkood horey kama soo gaaraan dambigan waxa laga yaabaa markii hore gabadhan uu ku dhacay in degmada iyo maaragtay saldhigga iyo meelahaas iyo inuu soo gaaro in la islaha maaragtay gabadhu waa raysan doontaa waa xalismi doontaa in la islaha hadda waxa laga yaabaa dhimashadii gabadhu ay dhimatay in maaragtay madaxda hay'adaha ammaanka oo sarsare madaxda gobolka banaadir oo sare social media xilligaas inay arintaas kor ay u soo kicdaan laga yaabaa laakiin markii hore meelahaas aan ku sheegayo inay soo marayna marka de lama dhihi karo xaqiiqatan waa laga gaabiyo lama dhihi karo haddii ay soo gaari lahaydna juhdiga hadda lagu bixinayo iyo waqtiga hadda la gelinayo mid ka badanaa la geli lahaa because waxaa laga yaabaa maalintaas iyo maanta inay kala sahlaneen maaragtay eedaysanaha ama maaragtay qofka dambiilaha qabashadiisu inay kala sahlaneedo hadda markaas magaaladuuba jooga hore ayaa laga soo qaban kara waxaan maqlaynaa inay socdaan dadaallo ku aadan in arrintan qaab dhaqan loo dhameeyo oo labada beelood ay ka xaalaan maxaad ka ogtahay wallahi da cabdullaahi waa maqlay maydkii weli inaan la aasin digfeer ayay dabcan marxuumaddu ay ku jirtay digfeerayna ku dhimatay inaan la aasinna waa maqlay oo weli maaragtay ay faranjiyeer ku jirto annaga marka dee ka maamul ahaan iyo ka hay-ada ammaan ahaan waxaana quseeya inaan dembigii iyo dembiilihii iyo sidii loo soo qaba lahaa howlahaasaan annagu ku howlanahay kana shaqaynayna aasitaanka iyo dee gabadha in la aaso maydkii la aaso in maaragtay dadkii familka ahaa qancaan dadka cadaalada ay dalbanayo in dembiilihii lasoo qabto annagu marka waxaan ku mashquulsannahay dembiilihii maaragtay suu ku fakaday suu horta ku fakaday uu magaaladan uga baxay hadda meesha ku sugan yahay sidii maaragtay ama hal la adeegsado qaraabo hal la adeegsado ama maaragtay hal la adeegsado famil ama saaxiib hal la adeegsadee in hay-adaha ammaanka meeshii ninkaas uu jooga sidii lagu gaari lahaa ayaan iska kaashanaynaa oo hawsheeda aan wadnaa marka waqtiga annaga hadda meesha aan saarayno oo aan ku bixinayno waa sida loo soo qaba lahaa dambiilaha sidii loo soo qaba lahaa ma u ballan qaadi kartaa shacabka Soomaaliyeed ee arrintan aadka ula socday jawaabna sugaya in qiimo kasta ha ku kacday aad gacanta ku soo dhigi doontaan soona qaban doontaan cadaaladna la marsiin doono eedaysanihii falkan geystay walaa ninka la yidhaahdo cabdullaahi horta annaga waxaan u ballan qaadaynaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka banaadir degan gaar ahaan kuwa dembiga oo laga galay oo maanta tirsanaya inay dembi laga galay oo gabadhoodii maaragtay la dilay oo si xun ay u dhimatay in annaga aan waqti ku bixinayno si dembiilahaas loo soo qaba lahaa qofku dembiga marka uu galo oo uu fakado waqti u baahan yahay in lagu bixiyo wuxuu u baahan yahay waa qof dhuumanaya wuxuu u baahan yahay maaragtay in xog badan la helo wuxuu u baahan yahay meesha uu joogo in la ogaado wuxuu u baahan yahay in la ogaado maaragtay dadka qarinaya iyo nuuca ay yihiin marka annagu dee waxaan ballan qaadaynaa waqti kasta ha ku kacde in ninkaas maaragtay lagu daba jiro hawshiisuna hadda socoto insha allahu tacaala waana ku guulaysan doonaa inaan soo helno hadduu ilaahay yidhaahdo